mushriga oo idiin muuqdo shirkigiisa bannaanka yaal ilaahay khayrkii u yeeranaya dadkii ku aafeeyey weliba hadda ka horna aan maqlay inuu yidhi kabcadii baan la soo raray bismi illaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu wa rasuuluh haddii ilaahay yidhaahdo maanta waxaan halkan uga jawaabi doonaa si dad badan ugu baraarugaan oo u arkaan qabuuriyiinta mushrikiinta ah inaanay diinta islaamka raad ku lahayn oo mushrikiin baxtiya maxdiya ay yihiin dhaqankoodii hadda ugu dambeeyo ay sameeyeen qabriga sheekh yuusuf direed ee magaalada huurshe oo u dhexaysa dhuusamareeb iyo caabudwaaq waxaa halkaa isugu tegey qaar badan oo ka mida culimmadoodii iyo shacabkii taageersanaa qabuuriyiintaas oo ku tawaafay qabriga dabeedna halkaa waxaa ugu muxaadareeyey oo kula hadlay shiikhoodii sheekh maxamuud waxyaabaha uu ku hadlayo iyaguna aaminsanayaan iyo habkii uu u fasiray tegidda qabriga shiikha iyo meeshaas kufriga iyo shirkiga ku jiraan rabaa wax badan inaan ka bixiyo mulaaxadaad ninkii caaqila oo la rabo doonaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli geliyo oo uu fahmo ahlu shirki waxa ay yihiin inaanu ka labalabayn ayaan rabaa inaad ku fahantaan aadaabteedu waa in aadan sheekha korka ka fuulin inaad u dhowdahay inaad meeshaadaas aad ka ziyaarato inaad ilaahay ku barido noocaas weeye inaad isaga u ducayso waxyaalahaas weeye aadaabta ziyaarada laakiin masale haddii aad samayso dawaaf iyo wixii iyo wax la oran karo ma aha dawaaf ma ah waxay dhibaysana lama arko wax ay leedahayna lama arko haddaad maanta idinku wareegayso waxay tahay lama arko haddii aada uga jeedo ikraam iyo karaamayn iyo haddaad uga jeedo waxbaba ma dhibaysaba waxbaba dhibi mayso maxaa yeele mashaayikhdu waa nool yihiin axyaawi waa wada joogaan kulligood waana maqlayo sheekheeda waa joogaan meel ma jiro waxaan istiqaasa aan sheekha ugu tawasulaynaa inta caawa ijaazadaada qaadata sheekh yuusufow waxaan kuugu tawasulaynaa inta caawa ijaazadaada qaadataa nuur inuu ka muuqdo oo xikma ka muuqato oo camal saalixii u ziyaado oo cilmi naafica ay helaan oo cibaado maqbuula ay helaan oo wixii dhib hayay ilaahay ka fujiyo oo kashfiga ilaahay uga faydo intaasaan kuugu tawasulaynaa ilaahay ugu tawasulaynaa adiga mashaaikhdii kaleetana adigaan kuugu tawasulaynaa ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maqaamkanaga ka gudbi mayno maqaamkaan joogaynaa ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار jahliga iyo dulmiga iyo kufriga ninkaasuu ku hadlay oo dad ilaahay u shariigiyey shirkigii uu diin uga dhigayo oo uu cibaado uga dhigayo in shiikhii la baryo qabriga ku aasnaa marka koowaad wuxuu yidhi aadaabta soo booqashada qabriga waxaa ka mida inaad si degan u timaaddo markaad timaaddo kadibna haddii aad ku tawaafto qabriga wax dhibaataa ma leh tawaafku annagu waxaanu barannay qur'aankuna na barayaa inuu cibaado yahay
maxaa yeelay ilaahay baa addoommadiisa amray inay ku tawaafaan xaramka ama kacbada ku tawaafaan. qaala subxaanahu wa tacaala waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq, muslimiintu ha ku tawaafaan beyt alcatiiq oo kacbada, meel kale oo la baneeyo lagu tawaafi karaa ma jirto. marka meel lagu karaameyn karo iyo cid lagu karaameyn karo oo takriim tawaaf loogu karaameyn karaa asal ahaan ma soo aroorin, maadaama ay cibaado tahay. halkaas meelna la sharciyeeyey in lagu tawaafo ilaahay amray. tawaafkii cibaadada ahaa bal nebigu amray calayhi salaatu wasalaam markii qofkii kacbada soo galaayo waa inuu tawaaf alquduum sameeya, ayuu uga dhigay qabrigii tawaafka marka la yimaado qofka uu ku tawaafayaay dhibaato inaana lahayn, bal ay tahay arrin mustaxab ah oo wuu u macaaneynaya iyaga haddaad ikraam iyo ka wada buu yidhi iyo sharfid iyo wax la mida. waa tallaabadii koowaad oo shirkigii uu ugu macaaneynaya mushrikiintii timid ee isaga xertiisa ahayd. midda labaad waxa uu yidhi shiikhu hadda waana maqlayaa, waana ogyahay inaan dul joogno, waxa weeye culammadu waana maqlaan, saas wey qabuuraha ku wada jirta. mar hadduuna maqlayo shiikhi waa u yeeranaynaa, istikaathaan weydiisanayna. luqadaasoo adeegsaday weliba mushrigu. istikaatha waxaa la yidhahdaa gargaar weydiisasho. waxaan istikaatho weydiisanaynaa oon ku wasiilo dalbaynaa buu yihi sheikh yuusufow, uu yihi magaciisa intuu ugu yeeray. ilaahay baanu kugu tawasulaynaa inta caawa ijaazadaada qaadatay ee halkan isugu timid, in nuur inuu ka muuqdo, xikmadi inay ka muuqato, camalkoodu maqbuul inuu noqdo. yacni adigaanu kugu tawasulaynaa, culummadii kalena adaanu kugu tawasulaynaa iyo mashaaikhdii kale. asagoo ka wada yani sheekh yuusufow adiga qudhaadaanu culummada kale kugu sheekh uweys iyo sheekh cabdiqaadir iyo ayaanu kugu tawasulaynaa laftigaaga, iyagaan sii maraynaa, kadib baan ilaahay u gudbaynaa. caqiidadaas waa caqiidadii mushrikiinta. markaan halhal u dul istaagno, marka koowaad tawaafka waa ka soo hadalnay oo mushrigu dadka uga dhigay inay wax bannaan tahay. marka labaad in isagii gargaar la weydiistaayey waa caqiidadii abujahal iyo abulahab. ilaahay baa ku tilmaamay mushrikiinta inay isgargaar weydiistaan cidaan alla ahayn. alla mu'miniinta wuxuu ku ammaanay inay isaga gargaar weydiistaan. id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum ba aleyh. wakti xasuusta nebigow aada ilaahay gargaar weydiisanayseen oo idinka ajiibay, waa dagaalkii beder oo wada garanaysaan. dhanka kale istikaatha gargaar dalabka waa cibaadadii laata iyo cuso ay siin jireen mushrikiintu. mushrikiintu kamaanay wadin markay laata iyo cuso baryayaan oo ay dhibkooda u sheeganayaan inay iyagu wax u tari karaan, laakiin waxay ka wadeen inay ilaahay ugu dhowaanayaan oo ilaahay wasiilo uga dhiganayaan si alla uga aqbalo subxaanahu wa tacaala. allahna ka waramay oo uu yihi subxaanahu waaladiina itakhaduu min duunihi awliyaa ma nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa. way caddaha marka ninkan ahlu shirkigaay dadka wuxuu ugu yeerayaa inay ilaahay cid aan ahayn u yeertaan, ilaahay cid aan ahayn ugu tawasulaan. baatilkaasuu dadka diin uga dhigay, iyagiina waa aaminsanayaan weliba. waxaa weeye waxaa nasiib darraha qarnigan anagoo hadda maanta marayna 14 qarni kadib nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dacwadiina ay aada u caddaatay. dadka ninka maanta shirkiga dadka uga dhigaya iyo kuwa ku indhala ee geeska afrika jooga, ilaahay waa hanuunin karaa subxaanahu wa tacaala. ciddii hanuun la maageen allah inuu hanuuniyaan ilaahay ka baryana. kuwii aan hanuun doonayno shirkigooda diinmooda u macaansanayana ilaahay ummadda inuu ka qabto subxaanahu wa tacaala. iyaga iyo kuwa difaacaya ku difaacaya shirkigooda moodaya in waxaasu diintii nebi maxamed tahay caleyhi salaatu wasalaam, weliba bisaraxatan aan la qarsanayn oo fiidiyoyo laga duubayo iyadoo qabrigii la tawaafayo, iyadoo la baryayo shiikhoodii ugu dul muxaadaraynayo. wuxuu yidhi intii maanta ijaazadaada qaadata caawa oo kuu timaaday, waxaanu kugu tawasulaynaa gargaar kaa weydiisanaynaa arrintaas in nuur ka muuqdo oo xikmadi ka muuqato, camalkooduna uu maqbuul noqdo oo la aqbalo. xataa aqbalidii camalka ayaa waxaa lagu daray in shiikha gargaarka la weydiisanaya camalka ilaah xaggiisa laga aqbalo. way caddaha marka taas inay ka sii liidato caqiidadii abujahal iyo tii abulahab iyo tii kale ee mushrikiintii kale ee quraysheed sida cutba binu rabiica. waxaan rabnaa marka inaad nala fahamtaan
dadka ilaaha kheyrkii isugu tegey ee sheekh yuusuf direed ilaah ka dhigtay inaad fahamtaan inaanay muslimiin ahayn ee ay mushrikiin yihiin. ninkii ku jira ee caqiidada diin ka dhiganaya waa qof hilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala. alla markuu ka hadlayay kuwa qabuuraha ku aasan wuxuu yidhi wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur, nebi allow adigu wax ma maqashiin kartid mid qabriga ku jira subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa caddeeyey. idan wuuna maqlaa, xaaladeennana waa og yahay, waana u warramaynaa. weliba sheekh yuusufow buu leeyahy, wuu dhawaaqaya xaalkeenna inaad wax ka beddesho oo aad yani dadkan oo dhan aad ijaazo siiso. markaad ijaazo siisana nuur iyo xikmad iyo wixii kurba haysood ka faydo, wax alla wixii kurba haya in kurbada looga faydo, wasiiladaada iyo istiqaatadaada. wallahi waa caqiidada abujahl. ninkii fahmayow ilaahay u toobadkeen subxaanahu wa tacaala. ninkii ku jirow ilaahay u toobadkeen. haddaad ku dhimato mushrik dhintay baa tahay. qaala allahu tacaala inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljannata wa ma'waahu الnaar wma lilظaalimiina min ansaar. ninkii alla u sharig yeele sidaa ku dhinta ilaahay jannadiisi waa ka xarimay, hoyga uu gelayaana naarta jahannamo wey. dhaalimiinta wax u gargaarayaana ma jiraan mushrikiinta. meel kale alla wuxuu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllahi faqad dala ضalaala baciida waman yushrik biاllahi faqad iftaraa ihman mubiina. alla wuxuu yidhi ilaahay ma cafiyo in loo sharig yeelo, wuuna cafiyaa wixii shirkiga ka yar qofkii u doona u cafiyaa. laakiin ninkii ilaah u sharig yeelaay wuxuu lumay baadi fog ayuu lumay. haddaan marka qofka camalkiisii o dhan ba la aqbalayn, sida allaba yidhi lain ashragta layaxbaطana camaluka, haddaad ilaahay u sharig yeesho nebi maxamed oo camalkaagii wanaagsanaa oo dhan baa baaba'aya. walatakuunana min alkhaasiriina, kuwa hoogay oo khasaaray baanad ku biiraysaa. haddii alla sidaa yidhi subxaanahu wa tacaala, camalkiisiina u baabi'iyey, ajarkiisiina aan loo qorayn, dembigiisiina aan la dhaafayn, naarna uusan weligii ka soo baxayn, jannadana uu xaaraam ay tahay inuu galo, waxaa nasiib daran maanta ninka hoogay ee caqiidada ahlu shirkiga mushrikiintaas ka mid ah, ama la caqiida ama iyaga jecel oo u yani difaacaya ee iyaga u qiiroonaya. kaasaa nasiib daran maanta. wuxuuna ku dambeynayaa meesha ay ku dambeeyeen walaalihiisii hore, mushrikiintii hore ee xilligii nebiga joogay calayhi salaatu wasalaam, ee odhanayey asnaamta waxaan u baryaynaa ilaahay inaanu ugu dhowaano oo keliya. kana wuxuu yidhi qabuuraha iyo awliyada waxaan u baryayaa ilaahay inaan ugu dhowaado shafeeco ka dalbo. kaasuna shafeecu ka dalbayey iyo dhowaansho, kana shafeeco iyo dhowaansho ka dalbayaa. kaasu nebi ibraahim baan raacsanahay buu ohan jiray, kana nebi maxamed baan raacsanahay buu leeyahay. idan mushrikiintu isma dhaamaan, kuwo hore iyo kuwo dambe. ninka ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumeeyeyo waa inaad goysaa, gaalaysiisaa mushrikiintaas. haddii kale ogow, naaqidka saddexaada nawaaqid alislaam waxaa weeye man lam yukafir almushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafar. ninkaan mushrikiinta gaalaysiin ama gaalnimadooda ka shakiya u dooda iyaga, ama madhabkoodaba saxiix yeelo difaaca, isagaana gaal ah bay yidhahdeen culamaa almuslimiin. waa ijmaac wey, kafara ijmaacan. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinayaa ilaahay in laga boqo subxaanahu wa tacaala. shirkigan mushrikiinta geeska afrika waa dhooban yihiin, ma aha huursho keliya iyo caabud waaq iyo meelaha u dhow keliya, bal heemaale iyo gaalkacyo ilaa iyo qardho oo uu ku aasan yahay kablo laxdaarood, ilaa meel kasii shisheeysa oo la yidhaahdo haylaal oo daaro ismaaciil lagu caabudo o lagu baryo, ilaa sheekh isxaaq, ilaa iyo sheekh madar oo hargeysa duleedkeeda ah, ilaa iyo awbar khadle oo isla hargeysa duleedkeeda ah, ilaa iyo sheekh nuur iyo uweys oo hadda ilaahay rag u soo saaray burburiya, ilaa iyo galbeedkaas oo ah sheekh yuusuf rabiic, sheekh yuusuf alkawneyn, iyo ninka sheekha la yidhaahdo sheekh maxamed rabiic, iyo abayonis, iyo xasan xaad oo hadda lagu garab aasay. waxaasoo dhan waa loo yeertaa. xaaji mikaahiil baa ka mida dadka loo yeerto. cabdulla iyo cawareera ka mida hubyo iyo duleedkeeda. waxaa ka mida sheikhan hadda aan ka hadlayna sheekh yuusuf dureed oo dhusmareeb iyo caabud dhexdooda lagu caabudo. in la caabudayana daliil ba idiin tahay. waa kan shiikhoodii dadka inta u geeyey meesha odhanayo dadkan waxay ilaahay ka rabaan in loo dembi dhaaf, yani nuur ay helaan iyo xikmad iyo camal maqbuula ayay ilaahay ka rabaan. hadda adaan kaa rabnaa hawshaas inaad ilaahay nooga soo dhammayso. wasiilo saasu ka wada. gargaar baanu ku weydiisanaynaa buyiri sheekh yuusufow. kuwa kale ay meel walba joogaana lama yaabaano waa caqiidadooda ee la caqiidaa.
kuwan way isu soo duubeen weliba waa ku qanacsan yihiin waxay rumaysan yihiin inay ku sugan yihiin diintii nabi maxamed. diintii nabi maxamedna ma aha. nabi maxamed beri buu ka yahay nin makhluuq u yeertay oo qabri dul fadhiistay oo habeen ku nagaaday oo weliba barye u yeerto ku tawaafay. taasoo caqiidada nabi maxamed ma ahan, nabi ibraahimna ma ahan, ambiyada ilaahayna beri bay ka yihiin. geeska africa masaladaas waa ku faaftay, xoogna way ku leedahay. ooyaaye sheikh ooyaaye fiqi wardheere sheikha kale guurow geela soo celi aweyso mid la yidhaahdo bakool ku aasan waqooyiga ilaa iyo koonfurta ilaa iyo bartamaha dhulka soomaalidu degto saasaa qabuura loo dul fadhiyaa ilaa ilaahay ninu badbaadiye mooye. mushrikiinta dhaqankoodu soo jireenka yahay, ninkan ka beri noqon oon caqiidadaas iyo fahamka iyo manhajka baatilka beri ka noqon iyagu la mid yahay. liqowlihi tacaala waman yatawalahu minkum fa inahu minhum. wa qaala calayhi الsalaatu wasalaam nabiga alle wuxuu yidhi almar'u maca man axaba yowma alqiyaama. qofku cidda u jeclaado maalinta qiyaama la meel noqonaya. haddaad kuwaas jeceshahay kuwaasaad ka mid tahay. haddaad nasraani jeceshahay nasraani baad tahay. haddaad qabuuri mushriga jeceshahay mushrig qabuuriyaa tahay. haddaad shiicada jeceshahay shiici baad tahay. haddaad yuhuudda jeceshahay yuhuud baad tahay. ciddaad jeclaataad ahaanaysaa. liqowlihi tacaala waman yatawalahu minkum fa inahu minhum. ninkii mushrikiinta iyo kafarada wala siiyo adinka idin ka mida iyagu ka mid yahay. digniin wey waan ku celinaynaa ilaahay ka baqa. inta goori goor tahay mushriga oo idiin muuqdo shirkigiisa banaanka yaal, ilaahay kheyrkii u yeeranaya, dadkii ku aafeeyey. weliba hadda ka horna aan maqlay inuu yihi kabcadii baan la soo raray oo dhusumareeb la keenay. dadka iska daba socdow ilaahay ka baqa. kuwa ka shakisan gaalnimadooduna waad ku gaaloobaysaan haddaadan mushrikiinta xukunkii ilaahay siiyey aydan siin oo aydan ka beri noqon. qaala calayhi الsalaatu wasalaam nabiga alle wuxuu yidhi man maata wahuwa yadcuu min duuni illahi nidan dakhala naar. ninkii dhintay isagoo cidaan ilaahayna ahayn u yeeranayey, makhluuq u yeeranay ama weli ha u yeertay ama nebi ama malag, ee sidaa ku dhinta naartuu galay buu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam, naartuu gelaya. xadiid kale nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayh wasalama man laqiya allaha yushrik bihi shayئa dakhala الnaar waman laqiyahu laa yushriku bihi shayئa dakhala اljanة aw kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam. ninkii ilaahay la kulma naftu ka dhacdo isagoo ilaahay u sharig yeelaya naartuu galayaa buu yidhi salى اllahu alayh wasalam. ninkii naftu ay ka dhacdo oo dhinta isagoo ilaahay waxidayana jannaduu gelayaa buu yidhi salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi. ninkii alla keliya caabudo aan u sharig yeelin jannaduu gelayaa. ninkii ilaahay u sharig yeelana naartuu ku waaraya. shirkiguna ma kala duwana kii soomaalida iyo kan carabta, kan hindida iyo kan faransiiska iyo kan shiinaha. dadku waa addoommo, allahna waa rabbigood. shirkina waa un shirki, ama qabri ha la baryo ama sanam ama nebi ama geed ama weli. ninkay u caddaato ilaahay waa kuu caddeeye. mushrikiinta beri ka noqo inta goori goor tahay. haddaadan beri ka noqonna ilahay hortiisaad ka ogaan doontaa. wa jazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.